السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكو سو دوادا برنامج gaar oo aanu idinka diyaarinay duqa degmada Wadweyne Cabdixakiin Nuur Muuse oo ay wehelinayaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo qaar ka mid ah cuqaasha gobolku oo kormeer ku tagay riigbiyoodkii oo dhawaan dhagax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo maalmihii u dambeeyay qodistiisu si rasmi ah uga socotay duleedka magaalada Wadweyne waxaana duqa degmada Wadweyne howlwadeenada riigaasi gacanta ku haya ku wareejiyay deeq xoolo nool oo loogu talagalay in loo qalo shaqaalaha duqa degmada Wadweyne xildhibaano iyo cuqaashi kala duwaneed ee halkaasi ka hadlay ayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa uga mahad celiyay waxqabadyada wax ku oolka ee ka fulinayso deegaanada gobolka. alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh waxaan halkan uga hambalyeeyaa uga mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mashaariicda ballaaran ee gobolka Daadmareer ka socda uu ka mid yahay riigan aan maanta dul joogno iyo laba riig oo kale degmada Xaad Saalax iyo Xaaxiya mashaariicda caafimaad ee ka socda deegaanka ee Gatiiteley Jamacada Caynaashi iyo Xaaxi waxaan runtii halkan jooga cuqaashii shifcaaqladii gobolka Daadmareer xildhibaanadii golaha deegaanka oo dhammaystiran aqoon-yahankii iyo waxgaradkii kale oo dhan runtii waxay intaas ugu yimaadeen halkan inay la qaybsadaan shirkaddan Somdrill ee qodaysa ceel biyoodkii koowaad ee laga qodayay gobolka Daadmareer hadba xaaladdu maraya inay ogaadaan oo ay deeqda uu xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland garwadeenka iyo Muuse ugu deeqeen Wadweyne ay la socdaan anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca golaha deegaanka waxaan maanta ku wareejin doonaa shirkadda shaqaalaha Somdrill 10 neef oo ariya aan insha Allah ugu talagalay deeq horaanteed intay riiga wadaan kolba inaanu ka qayb qaadato dawladda hoose waxaan runtii ku faraxsanahay ilaahayna uga ka baryeynaa inuu ilaahay ceel biyoodkan nooga dhigo ceel midho dhala oo biyaha inta badan ay Wadweyne u oomanayd runtii wax weyn ka tara mudane madaxweyne adiguna waan kaaga mahad celinaynaa oo markii koowaad miisaaniyadda qaranka ay mashaariic tiro badan runtii oo gobolka Daadmareer ay ka mid tahay jeelka iyo maxkamadda gobolku waa deegaan ballaaran oo 8 magaalo xukuma waxaan runtii rajaynaynaa maanta mashaariicda socota iyo wax wada qabsiga xukuumadda inay runtii shacabka reer Wadweyne ay diyaar iyo mid isku mid ay ka yihiin sidii xukuumadda garweyn ka tahay ay la garab geli lahaayeen wixii hiliyo hooa waxaan Cabdixakiin oo shirkadda Somdrill inagala jooga maanta mas'uulkii ugu shariyay shirkadda oo naga gudoomi doona asaguna mar dhow arigan deeqda horaantiisa maalinta insha Allah xariga laga jarayana waxaan ballan qaadaynaa inaan geel ku qali doono insha Allah ilaahay si aanu ceelashii hore laguma wanqali jirin ceelashii hore reer Wadweyne aad ugumay furfurcooneen ceelkan dhibaatadan haysta awgeed ayaan ku ala baryeynaa in ceelasha kale Xaad Saalax iyo Xaaxina insha Allah ilaahay biyo naga gaarsiiyo tanna waan ku rajaynahay waxaan ku soo dhaweey doonaa xildhibaan Camba kalmad signa si hore doona si chiefafka ugu soo dhaweeyo kulli sida Mayru sheegay halkan maanta waxaan u nimi dhiirigelin iyo inaanu hawsha ka qayb qaadano ka socota halkan waxaanu aad iyo aad u bogaadinaynaa dhiirigelinta ama ku dhiirashada uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi annaguna haddii aanu halkan gacmihiisii nahay waxaanu intii itaalkayaga ka qayb qaadanaynaa hawshu si ay habsami ugu socon lahayd wixii dadaalkayaga ama shaqaalaha jooga ama hawluba si u socdaan waanu ka qayb qaadanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nimcadeena soo foojiyay ilaahay alxamdulillah alxamdulillahi rabbil caalamiin nabi xadur sallallahu alayhi wasallam inta ka bacdi xafladan qiimaha badan ee isugu nimi maayirku hogaaminayo ay gudidii dawladda hoose oo dhan joogto chief caaqilada gobolka joogan waxaan soo booqanay riigii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhagax dhigay safarkii dhaweedu ku maray gobolada oo dhan oo dhax dhigay ayaan soo booqanay oo intii hore fasax laga maqnaa riiga imakana la bilaabay ayaamaan shaqaynayay mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu kaaga mahadnaqaynaa madaxweyne
riiggaa aad noo taagtay ee aad noo dhagax dhigtay ee bilaabmay ayaannu kaaga mahadnaqaynaa mudane madaxweyne waxaanu leenahay arrinkaa aad gashay horta ilaahay adiga xaggaaga ha kugu asturo ninka riigga wada ee samdaleella ilaahay ha ku guuleeyo sida mashaariicda dambe ugu hawl yaraato isna ilaahay ha ku guuleeyo meesha biyaha ka siiyo mudane madaxweyne ceelashii kalena waa la tegayaa kii beeratiya kii xaaxeed kii xaaj saalaxyo iyo kii xaaxeed insha allahu labadaba waxaanu ka rajaynaynaa in biyo laga helo insha allahu biyii waad noo bilowday emsiyajadii waad bilowday mashaariic badan baa sidaa maayarku sheegay aad noo gelisay haddaanu gobolka daad meedhnahay laakiin sidaa maayarku sheegay gobolku wuu badan yahay waxaas wax ka taraya male tii ugu weyneed baa kugu hadhay waa waddadana waanu kaa eegaynaa inaad marka laguu yimaado aad gunta ka xariiqdo waddadaana oodweyne maahe waa burco iyo ilaa hargeysa waddadaana inaad noogu darto haddii aan la idhaa oo aad noo geyso haddii aan la idhaa ama hayad ka qaad ama dawladda ka qaad meesha doonaysa ku qor madaxweyne waddadaas somalilan o dhan ba u dhexaysaa waddadaana waxaan doonaya inaad noo raacisaa insha allah haddii aan la idhaa waanu kuu ducaynaya ilaahay kuu guuleeyo arrimahaaga somalilanna waa muqadis nabadgelyaanu kaala shaqaynaynaa wax dhibina ma jirto ictiraafkiina insha allah waynu sugaynaa haddii aan la idhaa intaad meesha haysato marka hore ilaahay baa mahad leh allaha qadaray in maanta aynu halkaa isugu nimaadno oynu ku soo booqanno ceelkaa laga qoday biyaha allahaasaa mahad leh waxaa mahadda labaad leh madaxweynihii mashruuca dhagax dhigay baa mahadda labaad leh waxaannu qabnaa annagu haddaanu nahay reer oodweyne amba gobolka daadmadheedh dawladihii soo maray ilaa maalintii lagu soo noqday waddanka ee dib loola soo noqday xornimada ee gobolkaa daadmadheedh la magacaabay dee annaga dhagaxun baa la dhigi jiro oo laga dhaqaaqi jiray maanta waxaanu aragnaa waxqabad baanu aragnaa waxaa muuqda waxqabad dhab ah ceelkii wakaas waa la qodayaa kuwii emsiyajadii way socdaan iskuulladii waa la bilaabay waxqabad badan baa socda waxaannu doonaynaa madaxweyne waxyaabihii aad ku ballan qaaddo o dhan wasaaradaha ay khusayso inaad dabada ka soo kaxayso inaad tidhahdo nin walaba waxaad ballan qaadday ee aan ummadda u ballan qaaday u qabo ayaannu doonaynaa waxaannu doonaynaa in gobolkaa waa laga seexdaye aad samayso mar walba dad isku kiin xidha adig iyo gobolka oo adag waxaan u mahadnaqaynoo kale wasiirka deegaankaan u mahadnaqaynaa oo ka mid ah dadka ka shaqeeyey waxqabadka iyo horumar ka socda gobolka daadmadheedh waxaannu madaxweyne aad iyo aad kaaga mahadnaqaynaa mashaariicdaa waanaannu ku faraxsannahay waxaannu ballan qaadaynaa weliga iyo saddexdeedaa jiif caqli isugumanaan iman war saxaafadeed oodweyne ah kaas waa ina xaaji xuseen xaaji xasan kan waa ina xuseen liba waa jiif caqli weynaa anigu waxaanu jiif caqli cabdigulad goobe waxaannu ballan qaadaynaa oo aanaan cidna kala gabanayn inaannu ku barbar taagan aanu kala shaqayno nabadgelyada iyo waxqabadka dalka aad u qabanayso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hore waxaan ka hambalyaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo aannu ugu hambalyaynayno riigga uu noo dhagax dhigay oo ah riigaannu ku rajo weynahay oo soo saaraya biyaha ahayna riig siyaasadaysan sidii kuwii berigii hore inta naloo calaamadiyown wancadka noqday ee markay waxay doonayaan madaxweynayaashii hore gaadhaan ay naga dhaqaaqi jireen madaxweynaha muuse biixi cabdi waxaan aad iyo aad haddaannu nahay gobolka daadmadheedh ugu hambalyaynaynaa isagoo rubad runahaya ee aan footar beenbeena hayn waxaan leenahay madaxweyne gobolka daadmadheedh waa dad ku xidhan qaranka somalilan waxaannu ballan qaadaynaa haddaannu jiifafka nahay haddaannu shacabka nahay inaannu kula shaqayno oo qaranka la shaqayno ayaannu ballan qaadaynaa mashruuca aad keentayna ilaahay haynagu guuleeyo aad iyo aad bay u mahadsantihiin dhammaanteen madaxda halkan isugu timi iyo dadweynaha reer oodweyne halkan isugu yimi arrintan maanta la isugu yimi halkanna waxa weeyaan waa jacaylka loo qabo in oodweyne uu biyo helo aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyaynaynaa waxaanu kale oo iyagana aanu u mahad celinaynaa shaqaalaha riig dareelka ayaan u mahad celinaynaa maamulkooda iyo shaqaalahoodaba aad baan ugu mahad celinaynaa si fiican bay shaqada u socotaa madaxweyne reer oodweynena aad bay kugu riiqsiin waxaad u qabatay anigu waan ogahay inaad oodweyne aad jeceshahay oo wax badan u qaban doontana waan jecelahay halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biix cabdi oo noo keenay riiggaa maanta qiimaha leh ee aannu ku rajada weynnahay inuu
ilaahay naga siiya annagana biyaha waana ku ducaysanaynaa waxaa kale oo aan madaxweynaha ugu daraya hadalka rag badan baa soo yidhi waddada madaxweyne waddadaa noo hadhay biyaha waannu heli oo ilaahay wuu naga siin waddadana dadka joogaa imika waa dad dambe oo yaryar weeyaan dadkuna ma yaqaanno oo dadkiina yaqiinnay gobolkan yaqiinnay ma jiraan dadku hana barto waddadaasaannu madaxweyne doonaynaa waddada inaad wax nagala qabato oo aad noogala qabato annaga lafteedu waxbaannu ku darsanaynaa waannu qabanaynaa waannu la qabanaynaa waxaannu doonaynaa dawladda hay-adaha cid alle ciddii waddadaa wax ka qaban karaysaa inay nagala qabato waddada burco ilaa hargeysa sidaasaannu doonaynaa ilaahay sidaasaannu ka baryaynaa waana soo ducaynaynaa dhammaanba waxa aan salaamayaa dadweynaha sharafta leh ugu horreeya mudane madaxweyne muuse biixi cabdi isaga oo noo dhagax dhigay riigga gobolka daadmareedh annagu waxaannu ka tirsannahay dadka gobolka daadmareedh deegaanka u ah waxaannu weliba gaar ahaan siinnahay dadka reer waqooyiga ah ee xoolodhaqatada ah kuwaas oo aannu magaalada kaga soo aruuri jirray ugu yaraan ilaa 40 kilomitir magaalada oodweyne dhammaan maantana biyuhu way noo soo dhowaadeen maasha allah ilaahay waxaannu ka baryaynaa inuu biyo wanaagsan nooga soo saaro riiggaa naloo dhagax dhigay aad iyo aad annana waxaannu jecellahay inaannu ka cabbi doonno runaantii maanta halkan oo aynu joogno goobtan riiggu ka socdo waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda biyaha waxaa kaloo mahadnaq gaara le madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo qolada howlwadeennada ah ee riigga wadda oo uu kow ka yahay cabdixakiin waxa aan run ahaantii maayarka degmada ku qiyaasi karaa ama aan odhan karaa run ahaantii maayarka degmadu waa shakhsi u heelan arrimaha bulshada oo ay kow ka tahay biyuhu run ahaantii waad aragtaan siduu u dardargelinayo hadhiyo habeenba run ahaantii maayarka waxaan ku tilmaami karaa inuu haaneeday shaqadii uu u hayey degmada iyo gobolkaba waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaan leeyahay mudane madaxweyne waad ku mahadsan tahay waxqabadkaa aad ka fulisay gobolka daadmareedh insha allahu tacaala waxaannu ku rajo weynahay inuu riiggii oodweyne biyaha ka helayey ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala marka ugu horraysa ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala hawshii halkan aannu ka wadnayna runtii si wanaagsan bay u socotaa imminka 2 cishaannu shaqaynaynaa ceelkiina meel wanaagsan buu marayaa kalabadh buu marayaa haddaannu kaba dhowayn aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa maamulka shirkadda ee halkan jooga iyo shaqaalaha iyo injineerada waxaa maanta halkan nagu soo booqday odayaashii iyo maayirkii oodweyne iyo cuqaashii dhammaan iyo xildhibaanno iyo odayaal kale oo magaalada ka socda ilaa maalinkii halkaa shaqaalahaygu ay yimaadeen runtii way ka ammaan sheeganayeen oodweyne si gobonnimo leh ayaa loo soo dhoweeyey halkan imanka xoolo iyo adhi baan u guddoomayaa shaqaalaha laakiin adhi kaloo ka horreeyey ilaa maalinkii halkaa yimaadeen adhigu kama kala goyn marka intii hore iyo intanba waan idinka guddoomaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaynta qiimaha leh iyo qadarinta leh ilaahayna waxaan ka baryaynaa in maaragtay uu nagu guuleeyo ceelkaas dhammaystirkiisa dawladduna aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay inay dooratay shirkadda somdriil inay ceelkan iyo ceelasha kaleba u qodaan de ilaahay baa arrimaha gacanta ku haya ijaabada isagaa iska leh ilaahay baynu baryaynaa inuu inoo fududeeyo biyo inaga siiyo runtii himiladii aan shirkaddan u aasaasay waxay ahayd waxaan ogahay haddaynu biyo hello halkaasuu horumarku ka bilaabmaya waxaynu nahay dhul dihin ayaynu haysannaa oo aynu wax ka beeran karno xoolaheennii baynu kobcinaynaa calafkii xoolaha ayaynu beeraynaa dadkii bay dibudejin u noqonaysaa developmentigu wuxuu ka bilaabmaa biyaha marka himiladaasaan leennahay waxaa loo baahan yahay in laysku duubnaado horumarkana waxaa bays u ah dadku inay dawladnimada iyo wadatashiga iyo wada shaqaynta inay dadku ay fahmaan
xadaaraddu waa saas weeye in madaxda lala shaqeeyo ilaa kuwa ugu sarreeya ilaa heer gobol ilaa heer degmo in lala shaqeeyo xadaaraddu saasay ku jirtaa taas baynu horumar ku gaadhaynaa in la isjeclaado oo la isu hoggaansamo oo garbaha la qabsado taas bay shirkadaheennuna ku guulaysanayaan madaxdeeduna ku guulaysanaynaa deegaanaduna ay ku guulaysanayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin maayarka oodweyne iyo xildhibaanada halkan nala jooga jiif caaqilada dhammaan odayaasha aad iyo aad baad adeerayaal u mahadsantihiin madaxweynuhuna sidaa idinkuma aad sheegteen aad iyo aad buu u danaynaya ceelashaa gacantaannu ku haynaa inay guulaystaan si wanaagsan oo gobonnimo leh oo sharaf leh oo hawlfududayn lana ceelashaa wuu noogala shaqeeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda biyaha wasiir shukri aad iyo aad bay u mahadsan tahay xildhibaan waabeeye aad iyo aad buu u mahadsan yahay dhammaan dadkii nala shaqeeyey si gaara noola shaqeeyey ee hawshaa maaragtay ka warhayey baankarka guddoomiyaha cali aad iyo aad buu u mahadsan yahay dee dad fara badan baa aad iyo aad uu maaragtay uga shaqeeyey ceelashan inay guulaystaan ilaahay baa mahad leh aniguna xil gaara ayaan iska saaray dee iyadoo hawlo badan ay ii yaallaan ilaa maalinkii ceelkaa la bilaabay ilaa maanta waa aniga halkaa taagan dhex taagan waanaan dhex taagnaanayaa ilaa aynu guulaysanayno soo duceeya waanaad mahadsantihiin daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo muuse salebaan maxamed muuse xasaasi ah tan iyo intayna barnaamijkan lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu